kormeerkan ay wadeen guddoonka waxbarashada gobolka Karkaar ayaa ahaa mid ay u howlgalayeen mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka Karkaar waxayna halkaas ka jeediyeen khudbado ay kula dardaarmayaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkaar waxayna kula dardaarmeen inay si laba jibaaraan waxbarashadooda ugu horeyntii waxa goobta ka hadlay kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka Karkaar Mahad Yuusuf Kacayte iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar waxayna dhamaantood halkaas kula dardaarmeen ardayda ay kula kulmeen dugsiyada ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkaar waxayna ku dhiirigeliyeen in waxbarashada hore isu wadaan waxbarashaduna ay tahay mid qofka anfacaysa waxa sharaf weyn noo asaakay in aanu idinku soo booqano dugsigiinii xilli hore oo arooriye ah oo aanu kormeerkii aynu wadnay wixii teerabka ka dambeeyay aad maanta idinku nasiib u hesheen aanu ugu kuurgalaynay sida u socoto waxbarashadu fasalada waliba aad u fiirinay oo aad ugu kuurgalnay waxa kamid ah fasalka 8aad iyo fasalka form 1 oo secondary-ga fasalka 8aad ardaydoodu waxa weeye natiijadoodu waxay tahay haddii arday natiijo fiican waxaanu aad iyo aad idinku boorinaynaa xogaa waxaad moodaa iskuulada inaad kala mid tihiin qaabka soo daahida subaxdii maamulka iyo macallimiinta waxaan ku boorinayaa inay ardayda soo daahda waalidkood la xiriiraan waalidka u diraan ardayda waalidku yimaadaan lagala hadlo qaabka soo daahida iyo dhibka uu leeyahay noo soo dhaweysaan arday waxa weeyaan intii iskuulka la furay iskuulku bishan uu furan yahay teerabka labaad iskuuladana mareynay maanta waxa ku soo aaday iskuulka Qardho soo maritaankiisa marka adeerayaal arrin baan rabaa inaan idin kala hadlo arrintaasuna waxa weeye waa waqtigu waa shay aad muhiim ah waxaadna ku garanaysaa wadaadda yaryar baa tihiin gabdhaha iyo wiilashuba waad aragteen quraanka ilaahay isagoo ku dhaaranaya waqtiga al-casri baad arkaysaa waxaad arkaysaa wal-layli wad-duhaa waxa ilaahay ugu dhaaranaya waqtiga waxa weeyaan limuhimmatihi muhiimadda uu waqtigu leeyahay waxa dad baa waxay isku qabteen ma waqtiga wanaagsan oo qiimo badan mise dhaqaalaha iyo lacagta qiimo badan dadka laba group bay u kala baxeen dad waxay yiraahdeen dhaqaalaha qiimo badan waayo wax kasta waan ku iibsanaya dadna waxay yiraahdeen waqtiga qiimo badan qolo walba sababta baa la weydiiyay waxa la ogaaday dhaqaalaha haddii shirkad ama company 1 milyan oo dollar maanta ay ka dhunto waxa la arkaa in company uu kala dhameeyo 5 milyan oo dollar oo faa'iido u helo soo lacagtiisa dib u soo ceshan been ahayn waqtigu hadduu ku dhaafo daqiiqadii ina dhaaftay dib ma loo soo celin karaayo marka labada shay ka qaalisan ma waxa qaalisan wax la heli karo mise oo aan dib kuugu soo noqonin mise wax mar walba soo noqon kara marka cimrigaas waxa weeyaan in waqtiga inaynu ka faa'iideysano waa laga ka rabaa waxaan idin sheegayaa horumarka waxbarashadaada waxyaalaha aad ku guulgaari karto waxa kamid ah in qiraa'ada la bariyo macallinku hadda wuxuu idin yiri waxyaalaha aan kor uga qaadayna waxa weeyaan waa hadda waxaan arkay maharaat luqawiya wax la dhaho jira sida luqadda loo barto waxa weeyaan ardayga in la baro akhriska in la baro qorista in la baro ku hadalka in la baro dhageysiga waxa jira mid shanaad oo la dhaho critical thinking skills in qofku aad u fikiro oo waxaan luqadda ka fikiro marka luqadda ruuxeeda maadooyinka oo dhan baad ku dhiganaysaa luqadda ingiriisiga aad u bartay luqadda carabiguna waa luqadda diinta weey arday asbuucu wuxuu ka kooban yahay 7 beri maalintii habeenkuna intee saacadood bay yihiin ya habeenka iyo maalinta marka la isu geeyo intee bay yihiin 24 saac bravo ma sha Allah 24 saac qof hal daqiiqo u dheertay adduunka miyuu joogaa mise 24 kaas in wada haysanaa 24 keen wada haysanaa laakiin 24 saac dadna waa ka faa'iideysteen waa horumareen dadna waqtigoodii bay dayacaan oo waa liitaan maxamed cabdi naasir xuseen Shabelle TV magaalada Qardho